waxaan tagnay siligii baan garab raacnay BB2 oo BB1 u jiro 6 kilomitir halkaas oo ka bilaabato waqooyiga magaalada Balxaaw waqooyigeeda magaalada waqooyigeeda ku agyahay oo ah meesha rabashka ka dhacay markii soo gaarsiiyeen shacabka iyo qoladaas meesha iska bilaabanay ayaan tagnay BB1 ilaa BB2 oo 6 kilomitir ah markii GPS-ka injineerada ay ku cabireen waxay noo xaqiijiyeen waqtiga nagi balaarnaa oo meesha marayay 17 dhibic nus ama 17 iyo nus mitir maaha kilomitir 17 mitir iyo bar inuu leexsan yahay xuduudii BB1 laga bilaabo oo socoleed 17 mitir inuu 6 kilomitir 17 mitir u leexatay dhinaca Soomaaliya waa 6 kilomitir halkaas waftiga waa ka dhaqaaqay marka aragtaas waana meesha uu ku ogyahay siliga hadda loo dhisteen markaas meesha ku ogyahay oo la soo dhaafay waa waftiga waa dhaqaaqay wuxuu tagay meesha magaalada dhexdeeda ah oo u dhaxayso labada kastam ee Kenya iyo Soomaaliya kulli inta taqaano halkaas waxaa noogu soo baxay oo ku aragnay dadweynihii reer Balxaaw oo aan kaga dhigaysanay warbixin aad iyo aad u dheer iyo wax meesha ka socday waftigu baa la hadlay dadkii inay isdejiyaan dowladoodana ay u maqan tahay iyo golahooda baarlamaanka u maqan yihiin lana garab istaagayay macal dowlad goboleedkooda ayayna isdejiyaan nagana warsugaan waftigu wuxuu sii watay socodkiisii Kenya waxay ku yeelanaysaa ma jirto oo bad ay sheeganaysaa oo ay Soomaaliya ka qaadaysaa ma jirto waxaad ogtihiin in maxkamadda Hague hadda ay taalo dacwadii Soomaaliya iyo Kenya ay isku haysteen badda arrinta hadda uu senatorku inoo sharaxayo macnuhu waxa weeye Kenya xuduudda hadda sida u taala haddii la yidhaaho dadii la cabiro si perpendicular u dhacdo waxay ku helaysaa ma jirto way diidan tahay waxay leedahay heshiiskii ay weli rabtaa oo xuduudan beriga ay sidaa u soo qaloocinayso siduu inoo sheegay meel badda si perpendicular ay ugu dhacdo ay wax ku helaysaa iyo raadinaysaa taasina ma aha mid aynu aqbali karno oo aynu qaadan karno waxay soo baahan tahay dawladda ama dawlad goboleed ha noqoto ama dawladda dhexe ha noqoto iyo shicibka Soomaaliyeed sida degmada shicibka beled xaawo ay isu taageen in la isu taago oo arrintaa aan la ogolaan in la leexiyo oo laga raadinayo meel ay kolkaasi Kenya xuduudeedu si toosa badda la cabirayo ay ugaga dhacdo waxaan rabaa inaan maanta idiin sheego hal shay 1980kii waxaa safir inooga ahaa dowladda Scandinavianka dowladda Sweden Abdullaahi Ciise Maxamed wuxuu la soo heshiiyey shirkad Norwegian oo badda kolka la baarayo waxa weeye adduunka way ugu sidataa sida laynoo sheegay shirkad buu la soo heshiiyey shirkadii way timid Soomaaliya laba survey bay samaysay waa Ras Kamboni ilaa Baraawe ilaa Hobyo labadaa kolkay samaysay waxay ku noqotay dalkoodii joornaal ay leeyihiin ayay ku soo saareen waxay ku arkeen halkaas waxay sheegeen laba ceel oo baaxadda shidaal ay ku jirtaa ay ka weyn yihiin Norwegian oo dhan waxa ku jira ayay sheegtay markii arrintaas sheegtay waxay noqotay 7 shirkadood waa 3 Maraykana 2 Faransiisa mid Ingiriisa iyo mid Talyaaniya waa 3 shirkadood ee Maraykanka waa Chevron Conoco iyo Ameco labada Faransiiskuna waa Total iyo Elvis
britishka shell iyo cajab oo talyaaniga dacway keeneen ilaahay ha u naxariisto nin la odhan jiray maxamed cumar asad oo agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo biyaha ayaa warbixintaana siiyey kolkaa madaxweynihii bay u tageen nimankii oo dacwaha waa loo yeeray agaasimihii guud iyo wasiirkii nimankani kolka intaa sheegeen waxay yidhaahdeen yacni shirkadani maba soo geli karto dalka soomaaliya toddobadaasaa ku haysataa concession ma soo geli kara laba arrimood ayaa meesha kolka wasaaradda dowladda soomaaliya ay ka jeedisay warberri mooye bad weligiinba maydaan baarin waa su-aal waa talabaade intii aadba 60 sano oo aad baaris ku wadeen beriga soomaaliya weligiinna maydaan odhan meeshaa waxaa ku jira wax ma idaan sheegin hadda shirkadani waa bad waxay yidhaahdeen 89 sarveygii baan dhammaystiraynaa 90 waa soo saar anigu cabdi xaashi ahaan waxaan qabaa burburka iyo duminta soomaaliya arrintaa inay ka dambaysay oy daba socoto leesh kadib waaban burburni kolkaa arrintaa hadda shirkadda norway arrintay samaysay ee baddaasi ayaa arrintani hadda ay daba socotaa markaa waxaan leeyahay dowladdu iyo baarlamaanka labadiisa aqal oo guddiyada u xil saaran yacni arrimahaas iyo xukuumaddu inay u sameeyaan guddi arrintaa baaristeeda iyo ilaalinteedaba ka shaqeeya intaasaan odhan lahaa oon kaga baxaya waxaan gelaynaa kalfadhigii labaad ee aqalkan soo socday intiisa badan anigu waan idinka maqnaa waan idinka mahad celinayaa hawlihii aad qabateen guud ahaan waan idinka mahad celinayaa waxaana weeye aqalka maanta waan xiranaynaa laakiin xafladaad tidhaahdeen waa la qabanayaa ayaa inoo dambaysaan filaya warbixinta guud ee aqalka habeenka ama galabta aad arrintaas samaynaysaan ayay noqonaysaa in laydiin qaybiyo gudoomiye ku-xigeenka koowaadna waa idiin akhriyi doonaa aniga waa idiin sheegayaa hadalkan hadda intan aan hadlaya waxa iga keenay dareenuune hadal badan aniga 3 bilood dhakhtarkii wuxuu iga mamnuucay 3 bilood inaan hadal badan sameeyo intuu iga mamnuucay laakiin arrintan haddaan maanta idinkala hadlay waa arrin aan dareenkeeda si xoog leh u qabo oo ay tahay dalkeenna badiyo berri iyo hawada sidaynu u difaacan lahayn soomaali oo mid ah sidaynu u difaacan lahayn ayaa ereyga keenay waxaan rabaa aan odhanayaa aqalku kalfadhigii labaad waa inoo xiran yahay intaasaan kaga harayaa aad iyo aad ayaad mahadsantihiin waad mahadsantihiin aqalkuna waa inoo xiran yahay